munaasabadani oo ahayd xuska sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii hay'adda African Relief Committee ay bilowday taakuleynta agoomaha oo ay hadda ka soo wareegtay muddo 20 sanadood ah ayaa lagu qabtay isla xarunta agoomaha ee dawladda Kuwait ka hirgelisay magaalada Hargeysa. madashani ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda iskuulka, xubno ka mid ah golaha wasiirada Somaliland, gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, waalidiin iyo marti sharaf badan. munaasabadani intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay nashaa'id iyo bandhigyo kala duwan oo ay soo bandhigayeen ardayda farsamada gacanta ka dugsigani agoomaha ee Kuwait. ugu horeyn munaasabadani ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Relief Mudane Ibrahim Yusuf Goore iyo gudoomiyaha hay'adda Al Rahma oo ka hadlay muhiimadda caruurta agoonta ee iskuulkani u leeyahay. Al Rahma Alaalamiya Kuwait ku taala wuxuu ku dadaalay inuu ka soo dhaxbaxo shacabkiisa kuwa taagta daran leh ugu liita oo agoonta. sidaas ay ku gaadheen inay 20 sano ka soo shaqeeyaan ummadana wuxuu qabtaan meeshii la doonay inay soo gaarsiiyaan. إن شاء الله تعالى إلى الرجاليات إلى ميركنا أو خير كتير. هو نفس القمر الذي ظهر على سيدنا نوح عليه السلام. ولو قدر الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر أن يتحدثا لقال أن أعظم مهمة على الإطلاق هي رسم الابتسامة على الوجوه البائسة والحزينة، وهذه مهمة العمل الإنساني. xubno waalidiina iyo wasiirada wasaaradaha duulista, gaashaandhigga, ganacsiga, diinta iyo awqaafta, wasiirro ku-xigeenno iyo waalidiin ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda caruurta agoonta ahi u leeyahay goobtan loo dhisay ee ay wax ku bartaan. iyo runtii inta u adeegaysaba iyo agoonta lafteeda anaa garanayo agoonnimada ku soo koray waxa weeye waa arrin mucjizaa. ilmuhu markaa bihii isagoo yar uu dhinto dareenka ku jira iyo sida uu dareemayo kuwa aabbayaasho nool iyo aan halkan lagu sheegi karahay. waxaan odhan lahaa runtii waxaan u mahadcelinayaa hay'adka gacanta ka geysta. gabagabadii waxaa munaasabadani soo afmeeray wasiirka waxbarashada Somaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, isla markaana ku dheeraaday ahmiyadda goobtani ugu fadhido caruurta agoonta ah. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay raalligu ka noqon innaguna raalli baan ka nahay. intayna nooga soo kordhiyaanna waan doonaynaa, wayna ku mahadsan yihiin. bini'aadamkuna marka laysku baahan yahay kii wax ku taro waa kususnaanaysa. aad baa u mahadsantihiin shacbiga reer Kuwait, amiirka reer Kuwait, ninka dhaxalka sugaya waasle waa ninka qura ee carbeed ee aaminay Somaliland ee halkan inala degan dalkeena. waxaan idiin sheegaynaa in shacbiga reer Somaliland abaal badan idin hayo. ilaahay ajar idinku bedelo wixii aad samayseen. waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Germany, Bulsha TV, Hargeysa.